maanta waxaan idin tusi doonaa filim xiiso leh oo qarsoodi ah noloshii sagaalaad ee Lois Trax qaswadayaasha ka hor fiirso oo taxadar. Filimku wuxuu ku bilaabmayaa ilmo la yiraahdo Lois oo ka sheekaynaya noloshiisa qariibka ama si ku habboon noloshiisa badan. sida bisada waxa uu ka badbaaday dhowr shil oo dilaa ah tan iyo markii uu dhashay ay ku jiraan caarada qaniinyada koronto iyo cunto ku sumowga. xitaa neefta wuu joojiyey hal mar kadib markii uu ku qaylinayay waqti dheer, laakiin weligiis wuu badbaaday sababtoo ah Lois mar walba wuxuu dareemayaa inuu ku dhow yahay inuu dhinto hooyadiis Mele. mar ay u sharaxday in bisadaha ay leeyihiin 9 nolol, waxay ku dartay in Lois uu hore u isticmaalay sideed ka mid ah noloshiisii, mana aha in uu sii isticmaalo, balse waa lama huraan in Lois uu maalin kale weji geeri wajihi doono isaga iyo hooyadiis iyo aabihiis. wuxuu aaday dalxiis alif sida ah, laakiin wax ayaa dhacay. Lois waxay ku dhamaatay inay ku dhacdo jariirta mugdiga ah ee badda. bahal aan weji lahayn ayaa u sheegay inay xaliya sirta noloshiisa. baadhista ayaa hadda si xawli ah u socota oo ku saabsan waxa ku dhacay qoyska Lois. aabihii oo lagu magacaabi jiray Peter ayaa la waayay kadib markii uu dalxiiska u baxay, waxaanay booliisku ka heleen hooyadiis meel dhagax ah. dhanka kale Lois waxaa laga helay baadigoob iyo samata bixin. ugu dambeyntiina waxaa soo badbaadiyey diyaarad helikobtar ah oo ka soo kacday dhanka badda. ayaa waxaa u suurta gashay in ay isbitaalka geeyaan, balse dhakhtarka ayaa sheegay in canuga uu dhintay. balse inta uu meydkiisa yaalo Lois ayaa waxaa si lama filaan ah uga muuqday calaamado nololeed, waxaana si degdeg ah loogu celiyey qolka qaliinka uu dhintay 2 saacadood. laakiin si mucjiso ah ayaa nolosha dib ugu soo laabtay. si kastaba ha ahaatee, Lois waxa uu jebiyey inta badan lafaha jidhkiisa, waxaa ka lumay beeryarada, wuxuuna ku jiray miirbeel. dhakhtar caan ah oo lagu magacaabo Pascal oo ku takhasusay miirbeelka carruurta ayaa loogu yeeray inuu qabto Loiskiis. wuxuu isbaray Natalia oo isku dayay si ay u dejiso, laakiin waxay ku adkaysatay inay aragto wiilkeeda si uu Pascal u geeyo qaybta daryeelka degdega ah, halkaas oo sariirta isbitaalka Lois ay ka socday sariirta dibadda. tabtiibax ayay gacanta saartay si ay ugu soo dhawaato wiilkeeda Lois oo sii wata qisadiisa, isaga oo sheegay in aanay u fududayn hooyadii in ay daryeesho wiil qariib ah oo isaga oo kale ah. xitaa waxa ay qaadatay Lois dhakhaatiirta cilmi nafsiga oo u sheegay in aanu jeclayn. dhakhtarka dhimirka ayaa bilaabay fadhiga isaga oo weydiinaya Lois haddii uu akhriyey buugaag wanaagsan. waqtiyadan dambe ilmuhu waxa uu ku jawaabay in uu akhriyey kitaabka quduuska oo mutaystay ciqaabta. Lois ayaa si cad u sheegtay ma ixtiraamin dhakhtarka dhimirka iyo in uu u maleeyey in daawadu aysan faa'iido lahayn. hadda Pascal wuxuu ogaaday in ay jiraan horumarin ku saabsan kiiska Lois. boolisku waxay hadda ceyrsanayaan Peter sababtoo ah waxay aaminsan yihiin inuu ahaa kii Lois ka riixay dhagaxa cusbitaalku hadda dhigayo. Lois waxaa ku jira waardiye culus haddii ay dhacdo in aabihii soo laabto. Pascal wuxuu aaday sariirta Lois oo uu isbaray canuga miir daboolan. wuxuu sharaxay in Lois uu koomo ku jiro, uu leeyahay aragti ah in qaar ka mid ah koomo dadku dhab ahaantii ma rabaan inay toosaan ama diyaar uma aha inay fadhi kale oo daweyn ah. Lois si dhaqso ah u ogaatay in dhakhaatiirta cilmi nafsiga ay u maleeyeen inaad been abuur tahay dhammaan shilalka isaga ku dhacaya sababtoo ah wuxuu jecel yahay inuu soo jiito dareenka dadka waqtigan xaadirka baaraha mas-uulka ka ah. kiiskii jebiyey Pascal iyo dhakhtarkii kale ee ku saabsan asalka Lois waxay u sheegtay in ilmaha loo arkay dhakhtarka dhimirka oo rumaysnaa in Lois uu wax walba u been abuuranayay si taxadar leh. laakiin Pascal ayaa sabab u ah in Lois shilalka ay dib u soo noqdaan markii uu weli ilmo ahaa. sidaas darteed suurtagal ma ahayn in uu dhaawacyadaas naftiisa u geysto. waxa uu u malaynayaa in ay u badan tahay in Lois aabihiis uu jidh ahaan waxyeelo u geysanayay tan iyo markii uu yaraa ka dib. Pascal waxa uu u baxay in uu tamashlaha la socdo ilmaha. waxa uu ku sugan yahay xaalad daaqsimeed oo joogto ah, waxaana uu muuqdaa mid aad iyo aad u badan. uma badnaa in uu soo tooso, laakiin Pascal waxa uu sharaxay in uu caan ku yahay hababkiisa xagjirka ah ee lagu daaweynayo xaaladaha miirbeelka carruurta. uu aaminsan yahay koofiyadda haddii uu helo sabab uu ku qanciyo Lois ee maskaxdeeda miir qabka ah inay kacdo, markaas wuu badbaadin karaa wiilkeeda oo ku soo laabanaya heebta. bahal aan weji lahayn ayaa ku booriyey Lois inuu u sheego xasuus uu u sheegay waqtigii isaga iyo aabihiis ay safarka aadeen aquariumka, halkaas oo uu ku arkay manatees iyo xayawaano kale oo badda ah. si kastaba ha ahaatee, waxay si lama filaan ah ula kulmeen naagtii hore ee Peter oo horay u lahayd qoys aabihiis ah. aabihiis wuxuu ka codsaday Lois inuusan u sheegin kulanka Jan ee hooyadii sababtoo ah aad bay u xasaassan tahay. Lois ayaa ogolaatay. si kastaba ha ahaatee, markii waxay yimaadeen gurigoodii, Lois si degdeg ah ayaa loo qariyey sirtoodii. taasi waxay keentay dagaal aad u xun oo dhex maray
waalidkiis Lewis sidoo kale wuxuu kala hadlay safarkan dhakhtarka dhimirka wuxuuna shaaca ka qaaday inuu ogaa in waalidkiis aysan xitaa isjeclayn sababta kaliya ay u joogaan wadar ahaan waa isaga dartiis wuxuu sidoo kale ogaa in Peter uusan ahayn aabihiis noolaha waqtigan Pascal iyo xaaskiisa oo ka qayb gashay xafladda barbecue ee uu martigeliyay saaxiibkiis waxay soo baxday Natalia waxa kale oo lagu martiqaaday xafladan Basco ma caawin karo laakiin in lagu soo jiido quruxda badan xitaa iyada oo xaaskiisa ay ag taagan tahay isagoo u muuqda mid hinaase ah maalinta xigta Madley wuxuu keenaa Lewis hamster isbitaalka si uu saaxiib xayawaanka looma ogola laakiin maadaama Pascal uu boos jilicsan u leeyahay Nelly wuxuu u ogolaanayaa hal mar Lewis hamsters wuxuu sidoo kale ahaa mowduuc inta lagu guda jiray mid ka mid ah kulamadiisa daaweynta wuxuu si qalbi qabow ula wadaagay dhakhtarkiisa dhimirka inuu dilay hamsterkiisii ugu horreeyay isagoo ku dhufatay encyclopedia qaro weyn sababtu waxay ahayd Lewis wuxuu rumaysnaa mar haddii xayawaan yari laba jirsado in mulkiiluhu xaq u leeyahay inuu dilo dhakhtarka dhimirka ayaa la yaabay arrintan oo u qaatay in Lewis uu rabshadahan ka bartay aabihiis wax aan dheerayn kadib Natalia waxay soo afjartay fadhiyadii daaweynta Lewis kadib markii ay gashay muranka uu la yeeshay dhakhtarka dhimirka isaga oo socod kale ku jira ayaa Pascal u sharaxay in dhakhtarka dhimirka uu isku dayay in uu uga digo ninkeeda iyada oo sidoo kale shaaca ka qaaday in iyada iyo ninkeeda mar hore ayay kala tageen laakiin Butros waxa uu u yimid maalintaas inuu soo booqdo dhagaxa sababtoo ah waxay ahayd dhalashadii Louis aabuhu ka xanaaqay inuu si lama filaan ah u soo afjaray kulamadii daaweynta laakiin uma ay sheegin sababta dhabta ee ay taasi u dhacday markii aabuhu Lewis waxay noqotay mid gardaran oo carartay Butros ayaa ka daba cararay si lama filaan ah Lewis uga riixay jilibka oo ka dhaqaaqay dareenkii Nelly iyo Pascal waxay wadaagaan dhunkasho sharci darro ah isla waqtigaas Lewis si lama filaan ah ayuu miyirkiisa u soo noqday wuxuuna u yeedhay aabihiis kadibna wuu baxay mar kale muuqaal kale ayaa muujinaya habeenkii uu aabihii ka tagay markii ay isaga iyo Natalia kala tageen waxa uu soo galay qolka Lou oo uu u sheegay ilmahiisa in uu bixi doono in muddo ah sababtoo ah waxa uu xaaskiisa ka murugooday Pascal waxa uu keenay mid ka mid ah buugaagta Lewis ee uu jecel yahay cusbitaalka oo akhriyay isaga laakiin wuu ka go'ay markii uu maqlo dhawaqyo yaab leh oo cisbitaalka maran ayuu ka baxay qolka uu arkay khad madow iyo geed badeed wadada dhexdeeda Basco waxa uu raacay raadkii gudaha mid ka mid ah qolalka qaliinka waxa uu ogaaday xayawaan yaab leh oo dhulka ku garaacaya kadib Basco waxa uu dib ugu soo toosay sariirta Lewis dhinaceeda waxa uu ku riyoonayay maalmo kadib Pascal waxa uu la ciyaaray dhakhtarkii waxa uu daaha ka qaaday in guurkiisu uu ku dhow yahay inuu dhammaado dhakhtarku mar horeba wuu garanayaa sababtoo ah shaqaalaha isbitaalka ayaa arkay isaga oo dhunkanaya Natalia waxay wacday Pascal sababtoo ah waxay ka walwalsan tahay in Louis aabaheed uu guriga soo booqday qof warqad ka tagay oo si qarsoodi ah loogu qoray Lewis iyada oo warqadu u sheegayso inay ka fogaato Pascal ama khatar kale ayaa iman doonta mar haddii Lewis uu koomo ku jiro boolisku waxay u malaynayaan in tani ay tahay tii Peter isla markaas Pascal wuxuu siinayaa qol ka mid ah qolka isbitaalka oo ay ku jiri karto si ay u badbaado Pascal sidoo kale wuxuu la kulmay dhakhtarka dhimirka si uu wax uga weydiiyo Lewis uu muujiyo isaga warqada gacanta lagu qoray iyo dhakhtarka dhimirku waxa uu xaqiijinayaa in ay u eg tahay wax uu ilmuhu odhan lahaa dib u dhac kale oo muujinaya dhacdooyinka Lewis dhalashadiisa aabihiis wuxuu ka yimid San Diego isagoo hadiyadiisa hamster cusub Lewis u qaaday Lewis iyo Nelly habeenkaas Pascal wuxuu yimid xafiiskiisa wuxuuna ka helay xaaskiisa halkaas oo ay ka heshay warqad kale oo dahsoon oo ku cad in Pascal uu soo jiitay Natalia waxay warqada ku tuurtay Pascal kadibna waxay ka baxday iyadoo tilmaamaysa in guurkoodu uu si rasmi ah u dhamaaday baadhayaashu waxay booqdeen isbitaalka waxayna su'aalo ka weydiiyeen Pascal oo ku saabsan habdhaqanka Mele waxay weydiisay in midabka jilicsan uu u socdo burburka Pascal wuxuu ku jawaabay inuu aaminsan yahay cadaadiska iyo walbahaarka waxaa laga yaabaa in uu dhib ku hayo baaraha waxa uu sii xaqiijinayaa in aabaha maqan uusan ahayn Lewis aabaha dhalay iyo in Natalia ay u dhigtay Lewis si ay u korsato markii uu yaraa Pascal waxa uu aaday qolka isbitaalka oo ay Natalia ku jirto uga hor yimid arrintan iyada waxa uu qirtay in ninkuu isku qasbay taasina ay keentay